وني لعتاس وبحين إنسان ونانا شاقي إني كتمت قبل كبراندر يقدوميها منقاب ولعتاس وحقي سيكسعته ونانا شاقي lacag $10 oo sharci darra oo yaani maaragtay meel ay ku jahaysantahay aan la aqoon laakiin lacagtan canshuurta lacag ka dheer iyo $10 meel ay u socoto iyo meel ay ka socoto aan la garanayn culayska nagu hayso aan leenahay ma awoodno lacagtaas ma bixin karno nama qabato meel hadda ay naga qabatahay ma jirto waxaan rabnaa gudoomiyaha haddii aad og tahay cabashadeena maanta waxay ku socotaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan idin kala soo hadlayaa halka loo yaqaano tabeelaha Sheekh Ibraahim sida u jeedaan dadka halkan ku ganacsada ayaa isugu soo baxay waxaana gabi ahaanba maanta xiran ganacsiyadii halkan ka socday iyo dukaamadii halkan dadka isugu soo baxay ee ganacsatada ah waxay ka cabanayaan canshuur xad dhaaf ah oo ay ku soo rogeen maamulka gobolka Banaadir waxaana dukaan walba lagu soo rogay in uu dhiibo lacag dhan $10 oo aan la ogeyn meesha ay ka socoto iyo waliba meesha ay u socoto shacabka Soomaaliyeed ee halkan ku ganacsada ayaa isugu soo baxay halkan waxa ayna ka dhiidhinayaan go'aankooda ah canshuurtan iyagoo sheegeen in ay cabasho kala duwan u jeedinayaan madaxda ugu sarreeyay dalka sidoo kalena aysan dhiibi karin lacag dhan $10 oo aan la ogeyn meesha ay ka socoto iyo waliba meesha ay u socoto laha waxaan ka cabanaynaa lacag aan qaadi weynay meel ay u socotaanan aqoonin oo $10 ka bilaabata ilaa iyo wixii ka sareeyay gaartaa lacag ilaa $20 way gaartaa $2 waa u yar tahay laakiin culeyskeedu waa inta badan $10 lagu sheegay anagu canshuuran shati waa leenahay maaliyadan bixinaa canshuur bixiyaalaan nahay shati waa leenahay merchant waa leenahay intaas anagoo bixina oo mid maalin la xataa nalka qaado oo nadaafad ku haysan oo amnigu culeys ka jiro haddana waxaan kugu daray lacagtaas billaha ah oo bil kasta joogtada noo qabata na la yiraahdo waad bixinaysaan oo noo yimid noona sheegay lacagtaasu agaasimaha suuqyada gobolka Banaadir oo ni lacagtaas waa bixinaysaan oo noona sheegay inay ka timid gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha Mungaab oo lacagtaas xaqiisa ka socoto noo sheegay mana aqbali karno mana qaadi karno meeshan qaxootiga jooga dad waxa jooga iska dan yara maalin kasta oo dadkaas waxa laga yaabaa lafahanaga in anagu uga tanaasulno marka ay dhahaan qofku ku yimaado $1 haysta walaalo wax iga gad laga yaabaa lafahanaga in anagu uga tagno cabashadeenu waxay daaran tahay maantay lacag $10 oo sharci darra oo yaani maaragtay meel ay ku jahaysantahay aan la aqoon oo meel ay saaran tahay aan aqoon weynay oo la yiri agaasimaha suuqyada uu wato oo sharci darra aan ka doodaynaa lacagtaas aan diidanahay mudaharaadkeenu lacagtaas ku saabsan yahay ma ogolin ma qaadi karno waxay taa ma naqaano meel ay ku salaysantahay ma jirto sharci darra weeye lacagtaas aan diidanahay waxaanan ogolayn oo na dhiibi karin weeye lacagta waxa la sheegay lacag tabarteenu tahay oo aan qaadi karno ma ahan lacagtan waxa la sheegay lacag madaale oo markii hore uu qoray inay tahay aan naloo sheegay gudoomiyaha na inuu yaani maaragtay hadda ansixinayo naloo sheegay oo wax ka og yahay Mungaab lacagtaas aan cabasho ka nahay mana dhiibi karno mana dhiibayno siga waxa way canshuurtan anaga oo hogaamsanaa sharciga dawladana ma diidanin waxaan ku shaqeynaa waa sharciga dawladda maamirta dukaan walba mashruuci dawladda ay soo ku shaqeeyaa laakiin lacagtan canshuurta lacag ka dheer iyo $10 meel ay u socoto iyo meel ay ka socoto aan la garanayn culayska nagu hayso waxa intaana soo wada bixiyay waxay tahay culays jira sida daraadeed lacagta ama lacag dawladda xageeda ka socota dawladda dadka la wataana waa barnaamij dadka la wataana waa fahmi weynay dawladdeena waxaan ku codsanaynaa anagu sharciga dawladda ma diidanin mawaamiirta dawladda ma diidanin amarka dawladda waa ku shaqeynaa balse lacagtan $10 meel ay u socotaan garan laanahay waan may baaha suuqleyda culays weyn eed ku dareeman may geeka may baaha eed anka hungna ina ganacsiga tabeelaha hiranyi waana may baaha tabasho ku een dadka waa $10 bees la ka sheegay waana may baaha eed culays weyn anka dadka oo suuqleyda tabeelaha in badan waa maqaabil korna lacag baad ee homay baa meel ya ku socod emailiya ku qoyti unan ogayna maqaabil korna waana magaado korna culeysani eta marjan dadweynaha shacabka oo ka cabanaya dhibaatada suuqa ka jirto oo ganacsiga ah maadaama qof walba soo dooray quduruuri ayaa loo diiday mid cashuur doonayo mid ilaahay kuma sabadido doonayo cawaay hay'ad kale wax u doonayo
mid ilaahay kuma sabadiida u doonaya waay degmada garas baalle qof walba waxay rabtaa siday ku noolaa lahayd maamulkii inuu noolaadaan rabnaa shacabkii inuu noolaadaan rabnaa inaan wada noolaadaan rabnaa waxay taa noloshii waa noola diidan yahay codsanaya oo aan mar labaad ka codsanaya mar saddexaad ka codsanaya dadkan shacabka ah madax ayuu u yahay inuu u qafiifiyo awaay muungaba aan gaaro muungaba waa ku socdaa awaay anagu waxa wakiil laga ah awaay ibraahim wakiil laga ah ibraahim colow wakiil laga ilaahay ka sokow awaay wakiil wax uga siiyahay muungab oo wakiil uga siiyahay waxay taa codsi wax dagaala ma wadno wax rabshaa ma wadno wax dhibaa ma wadno waxaan rabnaa in dadka loo naxariiso ilaahay wuxuu isku naxariistaana waa nin naxariisanayaa intaas ayadoo dadku ay u dulqaadanayeen oo ay lahaayeen waa amar ka yimid dawladda federaalka Soomaaliya ayaa haddana waxa soo korortay mid la leeyahay waa $10 waa bille waxay ka socotaa xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan codsanaynaa gudoomiyaha haddii aad og tahayna inaad bulshada ka dulqaada lacagtaas ma awoodno guud ahaan anagoo ku hadlayna afka degmada Garas Baalley waxaan leenahay ma awoodno lacagtaas ma bixin karno nama qabato meel hadda ay naga qabatahay ma jirto waxaan rabnaa gudoomiyaha haddii aad og tahay cabashadeena maanta waxay ku socotaa gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha waxaan codsanaynaa haddii aad og tahay lacagtaas $10 ee billaha ah ee dadka lagu soo rogay ee aysan awoodin oo awal ay ka tan badatay canshuurtii awal ay sideen ee ka soo baxday gobolka Banaadir guud ahaan waa qaadanay awaamirtii ka soo baxday ma nihiin dad dawladda ka soo horjeeda ma rabna inaan dawladda mucaaradno waxaan nahay dad dawladda ku qanacsan oo wada muxaafida oo aan dawladda dhaliilsanayn amarada ka soo baxay haddana waxaan nahay dad masaakiin oo canshuur bixiyaala oo everyday times canshuur laga qaado canshuurtana la ka qaadaahay waxaan aaminsanahay inay loo dhaaftay xadkii loogu talagalay waxaan codsanaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir mar labaad iyo mar saddexaad aan ka codsanaynaa gudoomiyaha haddii aad og tahana waxaan ka codsanaynaa inaad si toos ah u soo farageliso oo aad dadka si toos ah uga dulqaado degan gobolka Banaadir haddii aadan ogeyn oo ay tahay wax magacaaga iyo masabkaaga lagu suurad xumaynayana aad joojiso arrintaas haddaad og tahana si toos ah u farageliyo nooga dulqaado Abdullah Abdulqaadir Ahmed, Soomaaliya.